kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa iriday halyeegoodii Paolo Maldini oo agaasimaha sanadii ugu dambeeyay kooxda maalmo kadib markii uu qayb libaaxa ka qaatay heshiis cusub oo saxiirada Leo oo uu ku qancay inuu sii joogo Sassari Stadium. Gudoomiyaha AC Milan ee ninka lagu magacaabo Gary Cardinale ayaa la sheegay inuu qaatay go'aanka in shaqada laga eriyo Paolo Maldini iyo ku-xigeenkiisa Rick Mazzara, balse laba sheegin sababta ka tirsan shaqada laga eriyo. Gary Cardinale oo kamid ahaa mulkiilayaasha kooxda sidoo kalena maamulaha naadiga ayaa u yeedhay Maldini iyo waliba Mazzara waxaana uu ku wargeliyay inaanay sii wada shaqayn doono ay tahay xilli ay ku haboonteen inay iska casilaan shaqadaasi. warar kala duwanaya ka soo baxay sababta loo eriyay Maldini, balse waxa la sheegay in Cardinale markii hore uu sheegay inay iscasilaan iyaguna diideen tabadelkeeduna si cadaan ah uu shaqada markaasi uga eray. Fabrizio Romano oo saxaafadda markaasi qayb libaaxa ka sidoo kalena ka faalooda arrimaha ciyaaraha ayaa sheegay dhinacyadu isla qaateen Maldini iyo Rick Mazzara inay isaga tagaan kooxda oo iscasilaada Quraan ah yeeshay wargeyska Tutti Sport iyo Calcio Mercato ayaa ku waramay in la eriyay oo aanay iyagu iscasil. Paolo Maldini noloshiisa oo dhan ku soo qaatay AC Milan oo kuriyadeedu ka soo baxay kagana fadhiisay ciyaaraha kubadda cagta ayaa wax xilka agaasimaha loo magacaabay sanadkii 2018 waxaana hadda booska uu baneeyay qabsan doona ama isku ballaarin doona Giorgio Vulani oo hore u ahaa gudoomiye ku-xigeenka. Si kastana Maldini ayaa waxa warar kala duwan ka qoraya saxaafadda reer Talyaani kuwaasi oo si kala u dhigay erida markaasi isaga lagu